الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan dadka luuqadayda garanaya afka Soomaaliga meel kasta adduunka joogan shanta qaaradoodba السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما شاء الله dhalinyarada meel kasta ba joogteen wiilal iyo gabdhaba waan wada shaqeynay waan sugayn wiilasha dhalinyarada hadalkii isugu kaay dambeeyay waxay ahaayeen markaan siigeeda joojiya oo guursada guurku waan ugu qaali gabdhihii guurkii waan ugu qaaliyeen baa tiraadeen waxaan la hadlay gabdhaha intooda indhagaraadka ahayd si loo caymiyo ragga jiilalka dambe waxaan joojiya meherka qaaliga iyo ragga shuruudaha ku xiraysan iyagoo way ballan qaadeen horta dhalinyarada saasaan ugu bishaareynayaa in gabdhihii diyaar idin yihiin ayagoo meherkii ka shaqeysiyay oo wax shuruud idin ku xirayn joojiya marka siigada iyo gacanta iska ilaaliya gabdhihii baa diyaar idin ah taas waa marka koobaad marka labaad halkan waxaan ugu baaqayaa gabdhihii aanu ballansanayn oo hadda ka hor aan u ballan qaaday inaan boosaas imaan doono inaan joogo barnaamijkii maadaama hadda ka hor ay eedaynayaan yiraahdeen nimanka kaliya la shaqeeysan nimanka lama shaqeeyo dumarka iyo ragga waa la shaqeeyaa islaaxu zawjayn ayaan soo saaray daawooyinka aan sameeyay waxa ka mid ah Ilaahay ugu guuleeyay example hadda xaruga galaha la yiraahdo haweenka afar nooc ugu dhacaa mar xilliga caadada ku xanuunsatay oo nabar iyo labada waa yeelataa marra waxaa burbur xilligiisa oo muqaddamaad iyo mutaakhir buu keenaa marra waa soo hordhaca marra waa dib dhaca laba jeer midabkiisa isbedela xilliga midabku isbedelo oo tagayurka uu keeno gabadha uu ku teedaa dhimanayso rimi mayso hadday ritana waa dhicinaysaa waxaan halkan calan baan u taagay Daaru Raxma YouTube-ka ku arki doontaan calanka waxaan u taagay dadka lagu beeray ilmaha Hindiya ilmaha baadida loogu beerayo waxa Ilaahay ugu guuleeyay daawo runo oo isbaamka ka shaqaysiinaysa waxaan kula talinayaa inay balteesgareeyaan daawooyinka soo saaray oo calanka meesha uga taagay ay fiirsadaan Soomaalidu waxaan u sameeyay daawooyin isbaamkii dhisaya hadda shalaydan oo khamiista oo khamiis ahayd wiil baa iga soo baxay Bargel gabadhii urba yeelatay buu yiri waa Ilaahay faligiis waa ninkaas u dambeeyay waxaan idin bishaareynayaa marka daawooyinkeena inay shaqeynayaan Daaru Raxma YouTube-ka booqda dhalinyaro Dr. Jaamac Ilaala Jecel aad baan idin salaamayaa waxaan kaloo idinku bishaareynaynaa inaan soo saarnay daawooyinkii dhig joojinta Sangstop daawooyin sida marka loogu shubo qofka dhiigga joojinaya ayaan soo saarnay maadaama beeshinkeygii ay islaynayaan waxaan jeclaan lahaa baaq u diray horta beeshinkeygu inay isdaayaan oo dagaalka joojiyaan meel kasta waxaan kaloo baaq halkan uga dirayaa gabdhaha hadday 2030 hadii la gaaro raggiina isku baabiisaan xagee qoor la idinkaga doonayaa waxaad ragga kala dhex gala gabdhaha meel joogtaanba si aad u badbaadisaan jiilalka dambe aad baan idin salaamayaa waa Dr. Jaamac Ilaala Jecel oo jooga Boosaaso wada shaqeyn wanaagsan wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan kaloo qiimo dhibis u sameeyay xarumahayga Puntland boqolkiiba 30 wiilasha daawooyinka haya waa in maadaama dhaqaale burbur u jiro oo dadkii ii warameen oo aan qiimo badan soo sameeyay waxaan qiimo dhibis ku sameeyay daawooyinkaygii Puntland boqolkiiba 30 sidaa waa in loo socdaan wassalaamu calaykum qofka aad baa mahadsan tahay qofka siigaysta wuxuu u baahan yahay 6 bilood daawada ilo siigadu 6 iyo 30 xidid baa baabiinaysa marka wuxuu rabaa long time waqti dheer oo soo kabto oo baalkii la soo koriyo ilo siigadu baalkan waa baabiinaysa biyuuna uu tufaya baalku baa ka dhacday halkaas maadaama gabdhii madaxweynaha laga daayo siigada hala joojiyo guurka raqiisa hala aado السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سامعنا كيني كرا سيدنا كيني الله رجل الجري ها قبلها لفتي قد ويسو يستان وحاجة جورلان ما جورسين سكبرون جنب بكام مقرنا ويسيل لو بيسابع ما كويني تشوشيان هي لفتي قد أفرتن شير صدق شير بجاريسا نبى كام مقرنا لو واحد بردراني سامع نقطة هي لفتي قد ما كويني تشوشيان burbur baa ku imaanaya de mar haddii qofku soo siigeystay uusan gabadhiina una isdaaweyn de gabadhu ma qancayso de madaxweynaha bay ka qaadaysaa stress marka waa inuu isdaaweeyaa oo baalka soo koriya loo 6 xidid baa baalkan soo gasha 6 ka xidid marka long time baalku mar walba caadaysto qofkii de diinta islaamkana waa ku ceeb oo ma ogola diinta islaamku in qofku siigeysto marka fiqiga dhageysta dadka Soomaalida waxaan ka codsanayaa inay dadkan Hindiya caruurta baadida loo soo beerayo kuwa runa Ilaahayna siiyay annaka oo wadankeena jooga oo lacag badan ka baxayn hadda niman baa Hindiya waxay Hindiya ama Turkiga markii guriyihii dhameeyaan oo lacagtii ka baxdo meel baabayaan bay xabaalaha la geenayaa dadka Soomaalida ah waar wadankeena ku soo noqda
mid kale waxaan ugu baaqayaa dadka Soomaalida ah hilibka idaha inay isticmaalaan war hilibka idaha isticmaala iyo cunnada baal kale oo wadankeena ka soo baxday taasaan ugu baaqayaa daawo oo haysa dadka kale adimada gaasteriga daawadan waa general way waa cudurrada guud gaas ababasiir infection waa sokor waa dhiikar waa dhiig joojin qofka wax ku jiraya ma jiraan xanuun oo dhac loo shaxkunta sida shaarkaas loo dhaqo baa qofku u dhaqmaya biinilaahi xagga isbaankeena dicirka islaaxu soo jeen baa soo saaray